baarihii cishihii markay tahay ayaa dukaamadii meeshan ku yaallay oo Brandir Bakaaro ahaa mid ka mid ah korkiisa dabku ka bakacay isla markii uu dabku ka kacayna waxaan maagnay ka u gurmada intii aan gurmadayna waxyaalaha aan samaynay inaan wacno shirkadda korontada Beeko iyo aan wacno si aan gurmad ku helno iyo baabuur isla markiiba shirkadda ilaahay noo mas'al inay ka jawaabaan ama si degdeg ah noogu soo maaratay gurmadaan dabkii waa hadiiba carradii dhan uu qabsaday adoo marka alxamdulillah rabbil caalamiin wixii dhima waa gubteen suuqii meeshaan ku yaalay waxba kama cayman way u jeedaan oo sidaas oo noqday saan ugu lahay maharad ganacsi anfac waxaan ugu dhacay caawa khasaare xoog leh ilaahay baa ka alxamdulillah ilaahay baa nasiya hadan ilaahay baa nasiya doono wixii dhici raba ayaa ka dhacay hanti weyn baa ku khasaartay haadi aad dib weyn ka dhacay alxamdulillah ilaahay baa ma iskale wixii dhici raba ayaa ka dhacay wax dhibo kala barbaleema ma dhicin ayaa musiibo ilaahay xaqiis ka timid hadda hantidii wixii waa ku baabeen waxaan kala baxnayna male waxa la wixii ilaahay yaraato badnaato haadi aad ay khasaaro u dhaceen waxa soo dhan waa dabay ka kaceen koronto ayay ka bilaabatay hadda wax kale oo dhiba ma jiraan intaas ka dhacday wixii hantiyan waa ku baabeen waxaan joognaa dabkii ka kacay caawa fiidkii iska Banaadir runtii oo ahaa dab aad baaxad weyn oo qayb badan oo kamid ah ganacsiga ku yaala goobtaasi wada qabsaday runtii dadaal badan oo ay sameeyeen shaqaalaha gurmadka degdega gobolka Banaadir qayb ka badan oo hadda la damiyay xoogiisii waa ku guuleysanay inaan damino qayb badan oo hadda wali waa dhimanna waa jiraan oo damintiisaan ku mashquulsanahay runtii khasaaraha ilaa hadda uu geystay ma qiyaasi karno markii aan soo afjarnaa ayaan sheegaynaa wixii khasaaraha iyo baaxadda uu leeyahay dabku waxaan ku mashquulsanahay hadda waa damintiisii shaqaalaha gurmadka degdega waxay ku mashquulsan yihiin si ay u damin lahaayeen waana rajaynaynaa inaan soo afjarno saacadaha soo socda waan naga tacsiinaynaa cid kasta oo maaragtay Soomaaliyeed oo runtii dadkaas waxyaalo ka soo gaartay khasaaro ka soo gaaray ama saameyn guud iyo mid dadba ay ka soo gaartay waan ka tacsiinaynaa insha Allah markaan soo afjarno saacadaha soo socdaan sheegaynaa dhammaan wixii khasaare ee la xiriira dabkan sida u jeedaan hadda wali hawlgalkiisii waa socdaa gaadiidka iyo shaqaaluhu waa ku mashquulsan yihiin sidoo soo afjari lahaayeen waana rajaynaynaa inaan guuleysano oo si fiican aan maaragtay u dimino